kulanka baarlamaanka ee maanta oo ahaa kalfadhiga saddexaad fadhigiisii 8 waxaa soo xaadirtay 243 xildhibaan waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayadoo goobjoogna ay ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad waxaana sida ajandaha uu ahaa xildhibaanada baarlamaanka maanta ay gudagaleen ka doodista iyo ansixinta barnaamijka xukuumadda iyo golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed ayaa baarlamaanka ka hor aqriyay khudbad uu ku faahfaahinayo barnaamijka xukuumadda ay ku shaqaynayso inta u dhaxaysa sanada 2014 ilaa 2016 iyadoo khudbadaasina ay ka koobneed 15 bog waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu ka hadlay qaabka uu u soo maray xukuumaddan cusub oo 30 ka mid ah 55 xubnood ee golaha wasiirada ay ka kooban ay ka yimaadeen xildhibaanada golaha shacabka ra'iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa xildhibaanada xasuusiyay marxaladaha uu dalku marayo haddii xukuumaddiisa la ansixiyana waxa uu tilmaamay inuu xoogga saari doono wax ka qabashada amniga oo muhiimadda koobaad labaad iyo tan saddexaad ba u ah sida dhisidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed qalabeyntooda baahinta nidaamka dawliga ah dhamaystirka howlgallada dalka lagu xoreynayo maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee al-shabaab dhaqan celinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada ka soo laabata kooxda al-shabaab joogto in loo bixiyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda dib u habeynta hoggaanka ciidamada wadaxaajoodka iyo hirgelinta cadaaladda waxaana uu ra'iisul wasaaruhu ku soo gabagabeeyay in yoolka xukuumaddiisa uu yahay in muwaadinka Soomaaliyeed uu ku noolaado xurriyad iyo amni meel kasta iyo goor kastaba inta lagu jiro fulinta barnaamijka waxaan isku xiri doonaa gudiyada kala duwan ee golaha shacabka federaalka iyo wasaaradaha howlaha qaabilsan ee xukuumadda si ay uga warqabaan heerka fulitaanka barnaamijka golaha shacabkuna uu helo xog dhab ah ee horumarka laga samaynayo fulinta barnaamijka ugu dambeyntii mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinka codsanayaa idinkoo dhageystay barnaamijkii shaqo ee xukuumaddaydu in aad ansixisaan xukuumaddan aan soo dhisay iyo barnaamijka shaqo ee ay xukuumaddu idin soo hordhigtay waxaan idinka mahad celinayaa kalsoonidii aad isiiseen waxaanan idinka rajaynayaa inaad siin doontaan kalsoonida si aynu wax uga qabanno baahida degdega ah ee maanta dalkeena ka jirta ee la rabo dawladdaanu inay wax ka qabato khudbadda ra'iisul wasaaraha kadib waxaa xildhibaanada baarlamaanku ay gudagaleen inay ka doodaan barnaamijka xukuumadda oo shalay loo qeybiyey waxaana isu qortay doodaasi 86 xildhibaan doodda xildhibaanada marka ay soo gabagabooday kadibna waxaa guddoonku uu geliyey in cod loo qaado barnaamijka xukuumadda iyo golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaaruhu soo dhisay iyadoo codeyntaasi ay ahayd mid gacantaaga gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta xildhibaanada baarlamaanka maanta ay noqotay natiijadu waxay noqotay sida soo socota hal xildhibaan baa maqnaaday markii inta fadhiday codeynaysa waxa weeye 233 ay ahaayeen inta ogolaatay waa 186 waxaa diiday 46 waxaa aamusay hal saa daraaddeed xukuumaddii iyo barnaamijkeeda waa ansixeen berito haddii aan la yidhaahdo ayaa la dhaarinayaa 10 ayaan idinku sugayaa halkan waxaa kaloo jira 4 ajando oo laydinka doonaya inaad go'aan ka gaartaan si kalfadhigan uu u xidhmo waan ku celinayaa berito 10 ayaa la dhaarinayaa halkan la isugu yimaado waxaa kaloo jira 4 ajando laydinka baahan yahay inaad go'aan ka gaartaan si kalfadhiga uu xidhmo mahadsanidin shirkan waa noo xiran yahay wasiirada cusub ee maanta ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa nolol dhex qaadnay mikrofoonka warbaahinta qaranka markay kulanka baarlamaanka ee maanta uu soo gabagaboobay kadib waxaana ay ka hadleen dareenkooda ku aadan tallaabada maanta baarlamaanku ay ku ansixiyeen runtii aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga dadka asxaabteyda ugula jira golaha cusub wasiirada waxaan aaminsanahay inaan nahay wasiiro ku yimiday kartidooda iyo aqoontooda madaxda silsilada qaranka markay wada tashanayna soo xileen waxaan aaminsanahay inaan qaban karno waajibaadkan hor yaallo waan ku faraxsanahay xogta kalsoonida baarlamaanka inay siiyeen maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in si democratic election uu dhacay maanta walaalaheen xildhibaanadana ay muujiyeen hufnaan siyaasadeed ay nagu soo doorteen maanta annagana waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin annagana waan ku faraxsanahay
waajibaadka ayna saarteen waxaan rajaynaynaa sidii noo siiyeen in ayagan ugu dhiibno duruufta adag ee dalka ku sugan yahay ayagoo dalka iyo dadka wakiilka ah ayay waxay garteen in barnaamijkan iyo xukuumadda ay ku qanceen barnaamijka xukuumadda soo gudbisay saas daraaddeedna ay siiyeen codka aqlabiyadda ugu sarreysay ee baarlamaanka runtii ma aha maanta fantasiyo iyo ruwaayad awalba xilbaan dalka iyo dadka u haynay oo shacabka wakiil aan uga ahayn waxaana loo ku daray mas'uuliyad kale oo naloo dhiibay annaga waa aqbalnay kalsoonina waa nala ku siiyey waxaana diyaar u nahay inaan nala kula xisaabtamo aad iyo aad ay muhiim u ahayd maantay meeshaan wixii ka dhacay tilaabo dimuqraadiya oo golaha shacabku maanta kalsoonida uu ku siiyey xukuumadda aad iyo aad ayaan u soo dhawaynaynaa annaga mas'uuliyad qaran ayaana saaran dal burbursanaa dhowr iyo 20 sano dawlad rasmi aan helin ayaa maanta inaloo doortay inaan wasiirro u noqonno waxaan rajaynaynaa insha allahu ilaahayna mas'uuliyadda sana la garab galo ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogaan insha Allah waxaan ka rajaynaynaa taageeradooda annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii mas'uuliyaddaas culus ee loo egmaday ka soo dhalala ilaahay inuu naga dhigo aad iyo aad ayaan u soo dhawaynaynaa tilaabada maanta baarlamaanka uu ku ansixiyey golaha xukuumadda iyo barnaamijkooda wasiirada la ansixiyey oo dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed oo maalnimada baritaa loo dhaarin doono xilkan waxaa hor yaala howlo adag oo ay ugu horeyso in dalkan ay gaarsiiyaan sanada 2016 marxalad ay dadweynuhu wax ku dooran karaan Cabdifataax Daahir Jayte telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho